maanta waxaan halkaan u joognaa imtixaanka shahaadiga ahaa ee ardayda Puntland dhammaantood qaybta gobolka Mudug oo iskuulka Cumar Samatar dhexdiisa aanu kaga warbixinayno sida xaaladdu u socoto. guud ahaan imtixaanku waa wanaagsan yahay bar kasta oo ay joogaan ama imtixaan ka socdana waxa jooga ciidamada amniga booliiska gobolka ayaga oo la soconaya xaaladda meel walba ka jira deganaanshaheeda iyo amnigeeda. alxamdulillah xaaladdu way wanaagsan tahay. waa shaqooyin hore loo soo qaban jiray oo si joogto ah arrimaha bulshada ah oo shaqada loo hayo shacabka mid ka mid ah door walbana sidoo kale loo qabtaa. maanta oo bisha 25 tahay May 2024 waxaan u taaganahay aanu halkan isugu nimid inaanu imtixaankaas maaragtay qaybteeda ka qaadano aad iyo aad ardayda iyo dhalintana waxaan ku bogaadinaynaa inay imtixaankooda si degan u galaan. waxaan u rajaynaynaa Ilaahay inuu u fududeeyo inay ka keenaan natiijo wanaagsan dhammaan Puntland oo dhan gaar ahaan gobolkan hadda aanu joogno. aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa nabad xaaladdu way degan tahay si wanaagsan u galaan leenahay imtixaankiina guul baa idin rajaynaynaa insha Allah. gabagabadiisana waa isla joogi doonaa. saxaafaddu waa u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol mar walba joogta. bahda caafimaadka waa u mahad celinaynaa goobaha ay joogaan bulshadu isugu tagtay ka mid tahay. waxaan leenahay meelaha kaleeto oo bulshadu ay joogto sida xabsiyada kale iyo baraha dadka lagu hayo kale sidaan oo kale u taga oo maaragtay u fiiriyo xaaladaheeda maalmaha qaarkood oo serviceka aad samaynaysaan oo maaragtay caafimaad. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.